waxaa loo laabanayaa 1991kii ayaa noqotay run kadib markii calooshood u shaqaystayaal ka soo jeeda beesha Habargidir oo ay horkacayaan Qorqor, Rooble, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kuwa kale ay si toos ah u beegsadeen saraakiil iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Mudulood. Qorqor madaxweynaha Galmudug darbaaxa siyaasadeed ayuu kala kulmay wada hadallada iyo waanwaantii uu ka dhaxwaday Farmaajo iyo Rooble. maxay tahay xogta laga qariyay ee ku aadan wada hadalladii fashilmay ee uu Qorqor horboodayay. mid kamid ah wasiiradiisa ayaa cadeeyay danta Qorqor uu ka lahaa wada hadallada. wasiir dowlaha madaxtooyada Galmudug Cumar Shido ayaa yiri Habargidir danteedii waa la waayay, taliyahanisa waa loo diiday Qorqor, dhaxdhaxaadintiina waa fashilantay. hadalka wasiirkaasi waxa uu muujinayaa danta Qorqor uu ka lahaa wada hadallada. dhanka kale wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa yiri carabka kuma adkaynayno dhinaca fashilka sababay, laakiin Qorqor taliyahanisa reer Xaaji Saleebaan waa uu u waayay. hadal kale oo farta meel ku fiiqayo khilaafka u dhaxeeyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble asal ahaan waxa uu ka bilowday kiiska Ikraan Tahliil, balse khilaafkooda oo daba dheeraada ayaa sababay inay sameeyaan magacaabisyo isdaba jooga jahooyin kala duwan u socda. xilalka inta khilaafku jiray la magacaabay waxa kamid ah Yaasiin Faray oo taliyahanisa Farmaajo uu magacaabay, waxa uuna ka dhashay Yaasiin Faray beesha Mudulood. Bashir Goobe oo isla booskaasi ra'iisul wasaare Rooble uu horay ugu magacaabay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo isna ka soo jeeda beelweynta Mudulood. madaxweyne Qorqor waxa uu dantiisa ka dhaxwaayay xilalkaasi la magacaabay. si kale hadii aan u dhahno waxa uu waayay hal shakhsi oo Habargidir ah oo magacaabisyada ka soo muuqday kadib wada hadallo dhaxmaray asaga iyo ra'iisul wasaare Rooble oo isku beel ka soo wada jeeda. waxay isku fahmeen in khilaafka ay ka dhaxraadiyaan dan qabiil oo kuraasta la isku haysto ay wareejiyaan shakhsiyaad Habargidir ah. inta kadib Qorqor oo kaashanayo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa bilaabay waanwaanta asaga oo wato mabda'i ah Habargidir u soo dhici kursi kamid ah kuraasta la isku haysto. markii uu la kulmay madaxweyne Farmaajo ayuu isku dayay inuu ku qanciyo in taliska nise loo magacaabo nin ka dhashay beesha Habargidir meeshana laga saaro Yaasiin Faray iyo Bashir Goobe. arintaasi waxaa si cad u qaadacay Farmaajo oo u sababeeyay inaysan Habargidir isla qaadan karin ra'iisul wasaare iyo taliye hay'adda nise ah, waana sababta rasmiga ah ee wada hadallada fashilisay. maadaama Qorqor uusan ka shaqaynaynin dan guud balse uu ka shaqaynayo dan beeleed asaga oo kaashanayo Rooble oo ay qabiil wadaagaan. wada hadalladu sidoo kale waxa ay ahaayeen kuwa hal dhinac ka socda, may jirin cid beelweynta Mudulood ku metelaysa. waxa lagu hardamayaana waa wiilashooda. ciidamada badbaado qaran ee waqooyiga Muqdisho ayaa ku biiray ama taageeray taliyahanisa ee dhanka Farmaajo Yaasiin Faray. Senator Muuse Suudi Yalaxowna waxa uu ballan qaaday inuu difaacayo qadiyadda Abgaal Cusmaan iyo beelweynta Mudulood.